السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الصود وهذا أصحابتي وقالي أنت هدي اللي إذا شاكن إنك شاكين دونا شاكن رقم هذا وأنت على هنا تكير الدونتان إن شاء الله هدي الله يرهدو إن شاكدني وحي كود على يعني إيو نمان أديروها وحتى أن كجور هاي نوتشو نيروبي مقالة اللي يرهدو تاريخ المركز و 1995 baahayd waxaan ku garanayaa waxaa dhintay beriga oo BBC laga dhageysanayay maalmaha aan sheekada nagu dhacayso wax yar kadib madaxweynihii Allahu naxariistay Maxamed Siyaad Barre geeridiisii baahayd marka waxaan ku garanayaa markaan weynaaday yaa waxaan Google-ka iyo ka arkay macnaha internet-ka madaxweynahaas inuu dhintay 1995 waana hubaa in tacsidiisa beriga aabaha iyo niman kale ay dhageysanayeen taayada waan hubaa marka kaasta xilligaas ahayd dayrna waa ahayd xilli dayraho barwaaqa abay ahayd marka waxaan joognaa meel baadiye oo xarxun la yiraahdo xarxun kulli dadkii macnaha qorraxay baa garanay waa gobolka qorraxay iyo ku taala xarxun waliba xagga bariga ka xigta magaalada Qabridahar bay xagga bariga waxay ka xigtaa inaan isleeyahay adigu 30 kiiloomitir meelaha qiyaastii aan ku qiyaas ka xigtaa bariga shilaabana xaggan ay ka soo tahay oo shilaabana waxay ka soo tahay xagga ma aragtay tukashada aniga Axmed oo markaa aad u yar oo dhalinyaro yar yaa markaan geeris soo xaraynay baa la yiri ol ma maqashan Axmed baa gabar la soo baxay baa halkii baan aniga Axmed aan fiidka iska soo dayn labada nin baa Axmed baa dhihi jiray ninka aroosay ninkan kale aan soo soconin adeerku ay labadaba laba Axmed baa ahaa halkii baan iska soo daynay waa cadda wad oo 15aad meeshaan deganeyn kulay ninka garanaya waxa la yiraahdaa ku magac dheerta qurac madoobe barinka la yiraahdo Jocofe xabaasha Jocofe barinka la yiraahdo halkaasaan joognaa niyow bari dambe oo tagay wayba isaga dhaweeytaan moodahay laakiin waxaan ku qiyaasay qofka laba lugoodka ee dheereeya 3 saac ka yar ma socdo halkii baan iska soo deynay aniga ninkii Axmed wasa malaha show meesha 3 saac loo socon jiray 2 saac gudahood waan ku nimid baan malaynayaa ana xiisaha naga haya arooska iyo ciyaarta iyo dhaantada iyo wax isku soo tuuraysaa wixii saas u dhacay durbaanka iyo ol ninka boolisku saac u dhex marahay halba kooro toon kale u wata kolba gabar garbasaar gududan saa ugu fiiqaya soo istaag halkan waxaa fadhida maxkamad qofka la soo kiciyo iyagu xukumayaan in yar ka bacdi waa la soo kiciyay soo istaag u shibay ugu dhacday asal soo dah laba heesood oo jacayl ama iyo dhowra mid geeru leeyahay laba arigu leeyahay aan ku dhahay mid sagaaradu leedahay laba dameeruhu leeyihiin waxyaabaha la igu xukumay oo meeshii baan ka dabaashay oo dib ay lama lahaynba waa berigii mar aan u malayn inay ka hadhay show mana isir 9kii weeyaan 9kii qiyaas ahaan subaxnimo yaa lagu kala dareeray kolkaas waliba waxaa la yiri hadana dhaantaha la sii qabsado saa dhaantadii hadana la qabsaday sawaala ciyaaraysa dhaantadii ba hadana 1 saac oo kale socotay anagu dhaantadii oo dhamaanin aniga iyo ninkii la oran jiray Axmed iyo niman kale oo aan meesha iska helay waanu dhabagal tagnay dhabagal
ninkii yaqaan baa yaqaanay ninkii arooska ahaa iyo gabadhii yaanu u dhabagalay waana dhaqan meesha ka jira oo waa iska caadi oo waa la isu dhabagalaa dhabagalka ninkii garanaya aqalku markuu sidan oo kale u dhisan yahay aqal Soomaaliga yaad xagga dambe soo fadhiisanaysaan waxa meesha ku dhisanna waa un hararo caws ka samaysano saa fooda isugu haya intaad qaadood saa u kala qaado aad saa uga qaawaysa halka codkoodana waa dhegeysan kolba wixii u daaran ama faynuus yar bariga faynuus yar baa socon jirtay ninka arooska faynuus baa loo keeni jiray yaa iyagu iftiin bay ku jiraan adna mugdigaas ku jirtaa banaanka kuma arkayaan si shanqar yaraan ama hayr saga faydo halkaas hawsha kala socon laakiin habeenka Axmed wuu nagu xumeeyay annaga oo intaanu saf ugu jiro aqalka dhanba isweer laga hayo aymaanu aragnay wixii saad noogu soo maqiiqa oo bahal buura wata qirbash saamid oo ka booda iyo mid shiran noqon dirigsa mid buu la soo gaaraysaa dhabarku yidho nig baa ka yeedhay annagoo maqal iga daasa tii dheereed baa ka dhacaysaa waanu kala yaacnay ama fadhi baa yaal ani ninkii Axmed ahaa waagi baa nagu bari gaaray qoraxdii markiiba soo guudatay meeshuna mad dhow meeshan in sheegay waxa loo socdaa 3 saacadood baa loo soconaya wali markii hore energy baanu haynay intaanu energy-go dhan oo naga dhamaaday oo hurdana qabatay yaanu markan waxaanu ku soconaynaa waan liidanaa adigu ala xaasil yaacna oo barqinkii baanu reerihi tagnay xilli xoolihii kala dareereen oo la maalay oo meelaanu aadnay la garan waayey oo show la isleeyahay nimankii talow xaggee aadeen baadina ma maqnayn aan reerihi tagnay alla waa kuwiisa aminkii waana seexanine yaanu halayowi ka daba tagnay meelaha xirkaa seexan sheekadaasi waa sheekooyinka ka dhaca miyiga ee xasaasiga ah iyo ka mid tahay ilaa haddana sidii weeyaan ilaa haddan aan kula hadlayo waa sidii arooska marka la tumo haddana dhaantoon baa la qabsan ragga qaarkiina dib unbay ugu soo kala fureen arooska iyo waxaa weeyaan caruuskii caruusada laakiin dardaaran yar baan siinayaa nimankan la khaawisayo ee iyaguna horey wax u soo khaawisi jiray ul yar iyo wax soo qaata ninkii waxaan ka yaabaa ninkii daryaanka ka yeedhay ma ilaa hadda ka sii yaabanahay sheekadaas sidaas ku dhamaatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal